Asalaamu calaykum, aniga Maxamed Muuse kusoo dhawaada qaybtii labaad sidaan u sameeyo renderkan. Qaybtii hore waxaan ilaaway inaan ii sheego inay tahay muhiim inaad markastaad Blender furtida wax sameynaysid inaad save garaysatid, inaad taabatid Control S markasta wax sameynaysid. Renderkan waxaa isticmaalay saddex waxyaalood oo kala ah computerka iyo ubaxan iyo furaas meesha yaalo iyo YouTube play buttonkaas. Marka afartaas xabo meesha kusoo dhaalgareeyay linkii hoos aan wada dhigaa kuligooda. Waxaa baahan tahay inaad iska diiwaangelisid, waa laba website. marka iska diiwaangelida soo dhaalgareys kartaa. waa kuwan afartiina file kulligood waxay wada yihiin zip file, laakiin markaa furtid kulligood waxaa kusoo dhex jiro faylal kale. saddexdan kusoo dhaalgareysanay website-ka ee BlendSwap kulligooda haddaa furtid waxaa ku jiro hal file, halkaas file wuxuu yahay .blend. Blender markaa kusoo laabad meeshaas waxaan u yaala collection ama group. marka collectionkan waa kan sameeyna dhan saas daraadeed waxaa u baahan tahay inaad magaciis u yeeshid magac si aanad ugu qaldin kuwa kale. kuwa qaarkood waxay lahaa karaan collection yaal badan, laakiin hadda kan waxaa ku jira hal collection. sidaas laga ku sameyn kartaa kuwa kale sida fuuha oo kale. waxaa u baahan tahay inaad aadid meesha ku qoran tahay file append, inaad fileka taabatid kadib .blend ka furitid. kuwa qaarkood markaa soo dhaalgareysatid saayid u weynaa kan hadda furahan oo kale qofkii sameynaya saayid u weynay markuu sameynaya. saddex iyo 10 mitir iyo wax la jiro. sidaas ilaga u baahantay inaad ku samaysid kuwa kale, laakiin kuwa qaarkood aan lahayn maxaa la dhihi jiray collection. waxaa u baahan tahay inaad u samaysatid inaad adiga u samaysatid sida computerka iyo kan YouTube-ka. maadaama collection lahayn markaa taabatid .blend fileka hadduuna lahayn collection waxaad taaban kartaa object, kadib aad wada taaban kartaa waxyaalaha u baahan tahay dhan. kadib kulligood wuxuu kusoo daadinaa meeshan. haddaa lacal u baahan tahay inaad objectigan aad gelisid collection kale waxaad taaban kartaa kadib collectionka u baahan tahay geedkaga ku qoran tahay ama furaha ama kanqolka aad si fudud ugi kartaa. hadduuna lahayn waxaad taaban kartaa meesha ku qoran tahay plus, kadibna waxaad samayn kartaa collection cusub. computerkana sida furaha oo kale uu ahaa saayid u weynaa asiga xataa maan ahayn hal object. shaashadda waxay ahayd object gaar, keyboardka wax kasta wuxuu ahaa object gaar. haddaa u baahan tahay inaad computer dhan hamar wada yareysid way kugu adkaan inaad mid kasto xabad u taabatid waaye. inaad taabana aad taaban karnaa Control G, kulligood wuxuu ka dhigaa hal object oo kooda dhigaa. meeshaan hal mar waxaan sameeyey qaladan sameeyaa mar waxaaba inaan ii sheego computerka maadaama uu saayid weynaa waxaa rab inuu noqdo computer 13 inch. saas daraadeeda 13 inch ku fiiri waxay tahay centimeter, marka waa 13 centimeter. marka computerka waxaan ka dhigay inuu yahay 33 centimeter, laakiin dhibaatada waxay ahayd wax kasta oo ku jiro collectionkaas wax ka saayid u weyn 8 mitir by 8 mitir, qaanadana waa 4 mitir geeska gees. saas daraadeeda computer 33 centimeter wuxuu ku noqonaa mobile kor saaran miis. soo marka waa bedelay maxaa la dhihi jiray dhamaadka wax kasta markaan dhigaya miiska waxaan ka fiirinayaa dhinaca kaamirada anigoo taabanaya eber, maadaama muhiimaddu waxay tahay dhinaca kaamirada inuu ka ahaado dhinaca kaamirada ka qurux badnaado. saas daraadeed waxaan riixay maadaran eber dhinaca kaamiradan ka fiirina haddaan rabo inaan furaha meesha dhigo, inaan computerka meesha dhigo. hadda bahalkan YouTube play buttonkan waxaa raba inaan keena meesha darbika inaan ku dhajiyo. haddaan si caadi rabo inaan ku dhajiyo way adkaa lahayd, laakiin haddaa taabana bahalkaas oo magnet ku eg kadibna taabana face, bahalka YouTube-ka derbigu ku dhigaa maadaama derbika dhan waxaa waaye hal weji waaye face weyn waaye, kadib derbigu bal eg yahay. qof ka sameeyey bahalkan YouTube play buttonkan runtii si fiican uu sameeyey. meeshan ay ku qoran tahay magaciisa kama dhigin object, wuxuu ka dhigay text. haddaa taaban tab saan aan edit mode-ka waan ka tiri karnaa wax dhan, waxaa rabnaa ku qori karnaa. waxaa ku qori kartaa waxaa rabtid magaca rabtid. haddaa baahanta waxaa ka bedeli kartaa meesha ku qoran tahay 100,000 waxaa ka dhigi kartaa 1 milyan. kadib meeshuu silver ka yahayne inaad dhinaca material ka bedeli karnaa kalarka dahabi ah. intaas ayaad runtii ku maasan tahay
qayb saddexaad waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo sida kombiyuutarka u bedeli lahayn shaashadda masawirka saaran maadaama qofkii sameeyey musawir uu saaray masawirka saarno inaan ka bedelno aan saarno screenshot aan ka qaadnay kombiyuutarka inaan rabnaa inaan saarno kombiyuutarkaas kale oo meesha ku jiro iyo waxaan tusi doonaa sida loo sameeyo materialga iyo nalka intaasay ahayd waa mahadsan tahay bye